waxa kale oo aan xasuustaa inantaydii aan jeclaa qalbiga ka jeclaa iyaduna ay jeclayd oo sanadkaas 2024 iga maqan oo indhaan saarin waxyaabihii doorashadu inaga tagtay qabiil baa ka mid ahaa qabyaalad baa ka mid ahayd waxyaabahaasana igu darnaa Soomaaliland mar kasta oo ay galayso aqoonsigu albaabada soo qaraaco waxa la inagu furaa buuq iyo mashquul iyo dagaal iyo xaynaan baa la inagu furaa waxa sanad aad u taariikh badan sanad waxyaabo badan ku xasuusto sanad kala jabkii Soomaaliland ku xasuustiyo soo yaacayaan jiidaha qaar banaynay waxyaabii horta sanadka cusub sanadkii dhaafo wixii ka dhacay 2024 horta wax taariikhda ku suntan weeyaan dawladdii kulmeena ugu suntan tahay laba doorasho oo saaray qabteen oo si nabad ah ku dhacday oo lagu kala guuleystay la isku hambaliyeeyay lagu kala caraf qaaday marka waxa la waxyaabihii doorashadu inaga tagtay qabiil baa ka mid ahaa qabyaalad baa ka mid ahayd waxyaabahaasana igu darnaa waxyaabahan iska dhaafno dadku waa walaalo dadku waa dad wada dhashay waa dad Soomaali ilaahay colaadaha jirana colaado badanna way jiraan oo dhan walba ka qarxaya oo Itoobiya haato Soomaaliland oo cirifka shacab waxaan leenahay waxyaabahaasna waxyaabihii ugu darnaa bay haayeen ee waddanka soo maray waxa igu sii darnaa dagaalkii laascaanood ka dhacay dadka badan ku dhinteen labada dhanba Allah u naxariistay iyagana xasuustu wallahi aad bi 2004 wixii dhacay aad buu badnaa ilaahay sanadka ayuu nooga dhigina sanad khayr qaba oo dadku isku caloolfayo ilaahay nooga dhigo waxaan halkan la wadaagayaa bulshada guud ahaan muslimiinta waxaan leeyahay sanadka cusub kii hore tigina ilaahay dhibiyo wuxuu dheef laabo inuu soo aragnay alxamdulillah rabbil caalamiin kan taagana waxaan hambaliyada la wadaagayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waa sanad cusub baynu soo galnay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu nooga yeelo mid barako barwaaqo bash nabad iyo mataqaanaaye inuu ilaahay nooga dhigo alxamdulillah rabbil caalamiin markasta oo hawl waxaan yiinaysa ilaahay waxa wanaagsan baa laga leeyahay inta markaan ka imaado waxaan maad cilnayaa oo guudaan salaamaya shacabka reer Soomaaliland mas'uuliyiin iyo shacaba inagu waxaan nahay dad ku nool nabad bulshada nabadeed baynu nahay waxaanu joognaa dhul nabadeed baynu joognaa waxaan ku soo darayaa away waxaad u fiirsataa Soomaaliland mar kasta oo ay galayso aqoonsigu albaabada soo qaraaco waxa la inagu furaa buuq iyo mashquul iyo dagaal iyo xaynaan baa la inagu furaa anu waxaan soo jeedinayaa maanta in badan baynu jeel ku jirnay dusha ka furan oo adduunyada dhan ku xidhnayn maanta aqoonsiga soo dhow waa inaynu sidii aynu aqoonsiga u helnaa gacmaha la iska qabsado sanadkii tagay waxa igu la yaab badnayd waxa weey dad kaba hoogyaanu hayno halkan yimiday maalintii magaalada soo tagay magaalada yimaadeen aan ogeyn oo isu sheegaya siyaasiyiintii horta waxa weey karaamadoodii waa qiimo dhacday waana qiimo beeshay ka saxaafada ahaan waxaan leeyahay horta waxa igu la yaab badnaa nin la raado shirwaco waxa weeye master iga duub aan aqaano boogta iga duub qolooyinka warbaahinta waxa farayaa inaanay dadka iyagu noocaas miidiyaha mar dambe niman adkeyn doona shuruucda Axmed Yaasiin oo farayaa qawaaniinta saxaafadda loo hoggaansamo nin kasta iska hadalun maaha raggaas ay igu la yaab badnaa horta waxa kale oo ku xasuustaa sanadkii tagay mudaharaadkii ugu weynaa silmiga ahaa ee madashan ay joogno ka dhacay baddu iib maaha oo qayb ka ahaa yaan ku xasuustaa waxa kale oo ku xasuustaa sanadkii tagay in gebi ahaanba mudaharaadkaas ay saxaafadda ku dibajoogay ay ka maqnayd waxa kale oo ku xasuustaa sidoo kale daryeel la'aanta gobolka Awdal xagga saxaafadda ayna wasaaradda warfaafintu ayna indhaha ku haynin wasiir waxaan ku leeyahay saacadda wasiir anoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka Awdal joogtay saxaafadda inaad wax badan ka bedeli doonto waan rajaynayaa inaad wax badan xusi doonto waan rajaynayaa sidoo kale waxa yidnaa xusid mudan xisbigii kulmiye oo 4 jeer barida dhulka ugu dhufannay taasina waxay ku timiday dhalinyartii isbedeldoonka ahaa tiim isbedel waxa la guuleysta waa markii afraad ee kulmiye barida aan dhulka ugu dhufanno annagoo ka dhalinyar ahaana
xisbigii kala qaybinta iyo dee wax ku suntanaa insha allahu tacaala wuuna tegey baybay baan leeyahay wasalaamu baynaa dhammaantiin reer kulmiye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sanadkan tegey waxaan ku xasuusanay wuxuu kulley sanad qiimo badan dhan marka laga eegana sanad aad u arbushaad badan buu ahaa kulley waxaa lagu xasuustaa sanadkii maaragtay waa sanad qalalaaso badan sanad qaxar badan sanad maaragtay aan dalka iyo dadka Soomaaliland midna u roonayn buu sanadkani marka khayrkiisii dhameeyay Allah hayna siiyo sanadkan cusubna waan soo dhaweynana marka anigu sanadkan waxa igu la yaab badnaa culimaan halkaas ku baranay oo asxaaban ahayn ayaa iiga warramay wanaagga reerka ama qoysku gaar ahaan u leeyahay markaas oo odaygu codceliya sheekh warniyo gabadhaad wax kasta ku kariso ama reerka laga kariyo waa inaad ammaanto mar kasta oo tiraahdo warniyo jazakallahu khayr Allah ka jazaasiyo markaas maalinta igu la yaab badnaa waxa aan sheekhi dhag baa u dhigin baan maalmaha ka mid ah warniyo sheekhan waa kan hadalkan kugu codceliya bal maanta xaafadii islaantii aad tiraahdo jazakallahu khayr kulley markaa sheekhaasi hadalkiis markaana waxaan hadal wuxuu kulley runteedii aad igu la yaab badnaa anna wax wanaagii u maan islaaw wixii wanaagii lagu soo sheegay islaamnimada iyo qoyska u gaarka sheeg iyo dhankaas ay faatay moogta markaa sanadkan waxa sanad aad u taariikh badan sanad waxyaabo badan ku xasuusto sanad kala jabkii Soomaaliland ku xasuusiyo soo yaacayaan jiidaha qaar banaynay sanadkan inaga tagay cusub waxaan ku xasuustaa madaxweynaha cusub Cabdiraxmaan ayaa ku xasuustaa waxa kale oo ku xasuustaa sanad kasta oo soo baxaya rajana wulaya wali wallahi rajada marka dadweynaha waxa ku codsanaya warba inay jacaylka waxay la qabtaan taa ayaan media ka sheegaya sanadka tagay waxaan ku xasuustaa ilaahay ha naxariistay mujaahidkii weynaa ee Xamaas markii la dilay ayaan aad uga xasuustaa oo ka murugooda waxa kale oo aan xasuustaa inantaydii aan jeclaa qalbiga ka jeclaa iyaduna ay jeclayd oo sanadkaas 2024 iga maqan oo indhaan saarin oo lana kala fogeeyay ayaan ku xasuustaa cawabilan waa inan qaaliya insha Allah hees qaaliya oo u sameeyo ducaana insha Allah waxay saaran tahay daawahay saaran tahay fanaaniinta Soomaalida ugu caansan ka ugu cod macaan ayaan u dhiibi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qisadii igu la yaab badneed waxay ku dhacday 24kii bishii 6aad 2024 meel baan ka shaqayn jiray 10 years meeshaasi waa meeshaan aad uga shaqeeyay in badan shaqo muhiimana waan ka hayay kamana filayn in la iga joojinayo shaqada fasaxan codsan baa la siiyay fasaxii markii la siiyay intii aan fasaxa ku maqnaaba la sii baadhan dagay kadib fasaxii markaan dhameystay baa shaqadii nin kale loo dhiibay adu waxa igu dhacay aftuub shaqo aad baa la inqiraabay inqiraabkaasina aad baan ugu xumahay marka waxyaabo badan adduunyada kale way dhacaan laakiin qisadaas oo kala ku dhicismaan lahayn meesha aad baan uga shaqeeyay xubno muhiim ah ka ahaa matalan meesha meel aad u weyn bay ahayd marka in badan baan ka shaqeynayay isma lahayn sidana kugu dhici qisadaas aniga igu yala badan bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxa leeyahay ummadda muslimiinta sanad cusub oo wanaagsan sanadkii dhamaaday waxa lagu xasuustaa iskoorkii ka dhacay Soomaaliland doorashooyinka caalamka kaba dhicin 148 lagu kala badiyay oo lagu badiyay oo laga badiyay kulmiye cirrana waxa leenahay sanadka cusub ee soo galay inaad dadka barwaaqaysiisid oo qabiyaalada joojisid oo dadka ku wada sanada walaa ilaa eergaabo ilaa loo yaado iskoorka ka dhacayna caalamka weligeed la maarag iyo waxa ka sheekeynaya muslimiintana iyo ama dadka Soomaaliland ama Soomaaliya miidiyaha la wareejinaya la leeyahay rag baa la dilay iyo nin baa gaari laga tuuray iyo waxa siyaasadda la gelinayo war anagu dhulbaantu wadana la dhashay dhulbaantu wayna la dhashay wadalkay waa walaalahay waa dad fiican oo sharaf leh ragga miidiya ka hadlay banaanada dibadaha ee awdal jaamacadda isaga soo dareeraan ya war awdal waa qoqoyanada gobolka awdal waa dad wanaagsan oo qabiil lahayn qabiilada lahayn laakiin waxa wala samaystay jabhadadii oo sida odayga Afrika sheegay jabhadaha la samaystay waxa uu balanayaa inaan anagu la jabhad samaysan maynay anagu waxaan nahay hooyigii tacliinta waxaan doonaynaa inaan anagu waddanka xaquuqnaadan lahayn gobolka ka soo jeedo gobolka awdal sharaf iyo wanaag iyo cis iyo inoogu soo bilaatay tii horena waxaan ku sabootinay musabixi oo laga helo cirka soo furay xilka iskoor weyn baa ka dhacay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh